waxaynu imika halkan u joognaa inaynu ku dhawaaqno natiijada shantii ardayda ku guulaystay tartanka. markaa saddex horeba waynu sheegnay labada kaalmood ee u dambeeya afraad iyo shanaad ayay afar arday u tartamayeen markii ay isku maarkas keeneen dabadeed. markaa kaalinta koowaad sidaan markii hore sheegnay waxaa ku soo baxday Deeqa Cabdi Mire, waxay keentay 12 maarkas, 15 maarkasna waa lagu bixinayay. kaalinta labaad Cabdiwahaab Axmed Maxamuud, isna 12 maarkas buu keenay, waxaana lagu bixinayay 15 maarkas. kaalinta saddexaadna Ciise Muuse Cabdi, isna 12 maarkas buu keenay, waxaana lagu bixinayay 15 maarkas. markaa kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad labada arday ee gale waa isku maarkas, alphabetical baa loo siiyay kala horreysiyay. labadii arday ee dib u tartamay iyagu imtixaankay galeen saddex maarkas buu hayo, saddex su'aalood bay hayeen. markaa Xabse Cabdi Cabdilaahi iyo saddexdii su'aalood ee dambe ee ay ku sii kala baxayeen saddexdiiba way garatay. markaa saddex maarkas bay keentay, saddexdii su'aaloodba way garatay, saddexdiiba saddex bay keentay. sidaasay ku gashay. markaa kaalinta afraad Cabdiraxmaan Axmed Maxamed, isna 2 maarkas buu keenay, saddexdii su'aalood ee dambe dib loogu tartamayay, isna 2 ka keenay saddexdii maarkas. markaa labada arday ee dambe Xabse Cabdi Cabdilaahi iyo Cabdiraxmaan Axmed Maxamed oo dib imtixaan kale looga qaado 3 maarkas ah, waxay kala galeen kaalinta afraad oo ay gashay Xabse Cabdi Cabdilaahi oo 3 maarkas ah iyo Cabdiraxmaan Axmed Maxamed oo 2 maarkas.